Coronavirus-kiiyow ummadii waad kadeeday, kufaarta u sii darnaatee, kuwa Shiinaha ku nool Mareykan Yurub kuwaa jiri, dadkii kala reebi weyday. Kirishtankii cabaadye, kollayta waxaan hubnaa oo shaki aanan ka keenin, wixii koonkan yimaada Kariimka soo qorsheeyay, kaskiisu wuxuu ka maago cidii kama hor istaagto. Kitaabku wuxuu na baray, rasuulkana uu ku qowlay, musiibada soo korodha Rabbiga inaan ka tuugno, inuu naga kaafiyaa oo dhinacyada uu kaxeeyo. Muxuu dana kala geeyay, Kacbadii wuxuu ka yeelay kobaan lagubaba dawaafin, dadkii isku kalfurnaana korka korabay salaanta, gacmaha ka kala taagi. Halkaa leentoon ka yaabay, haddaan dahaba ka qaado, dad baa ka macaasha dhibka, kuwa agabkii daryeelka dadku kaashan lahaayeen. Cirka ku shareera beeca, ka raadiya ribix gaara, ka joog waxbarashada, kulan wadareed ka daaya, diyaarad bayaan la korin, waxaas ka fogo waxaasne, iyo kuwa soo socdaaba adaa kofidow nabaaday. Waqooyiga Kuuriyada iyo midda koonfureedba, kayaadan dariska ahba iyo kuwa aan fogaynba, kuway dalalay ku jirtan, masaajid kolay ku tahay, kacaage wadal kulankii. Hadalka waxaan ku kaabi, talaadana aan ku darsan, kaftan magale cudurku kadoodii kal hore, dadkeenu ku kajimayay ka dheer midkani walee. Kashaada adoon walwaalin, waxba adigoon kurboonin, wejigana aan kaduudin, dhakhaatiirta la kaasho, talooyinka ayna keeneen, adoon midna aan ka kibrin, walaal Allaha la kaasho. Allow adiga kariim ah, adaa koonkan abuuray, adaa keli baryada leh, adaa danaheena kaafin, waxaan la kurbaysanahay aday ku sahlanaatee. Allow naga kori cudurkan.